soo baxan ayaa ahaa mid lagu taageerayo qaraarkii golaha shacabka 27 Juun ee sanadkii tagay u soo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasoo ku aadanay matalaadda gobolka Banaadir 13 kursi ku yeelanayo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kaasoo maalin ka hor saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ururada haweenka dhalinyaro ardayda dugsiyada iyo boqolaal kale oo bulshada kale kuwaasi uu muujiyay shucuurtooda ugu horeyn waxaa dareenka shacabka la qaybsaday gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Muqtaar Baare iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fortune Aadan Xiivo soo bixitaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan taageerno matalaadda gobolka Banaadir 13 xubnood ee aqalka sare ee uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay waa taageersanahay maqaamka ee gobolka Banaadir ama matalaadii ay heshay waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamiri dhaliyay Banaadir hamigeedii iyo rabitaankeedii waan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay bulshada reer Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan tanir Shabeellaba dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi Cali iyo sidoo kale maamulaha dugsiga Sheekh Xasan Barsane Axmed Jiis maanta waa maalin aad farxad badan sababtoo ah waa maalin markii la helay matalaadii gobolka Banaadir taasoo ah mid qiimo weyn ugu fadhida Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Banaadir waa 13 xubnood ee golaha sare marka waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay sheegaynaa gobolka Banaadir in ay walaalo ay leeyihiin oo garb istaaga u hiiliya u banaan baxa waa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa walaal la ah ayaa garabkooda taagan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makraan ayaa shacabka u la wadaagay guushan ay ku taageerayaan walaalahooda gobolka Banaadir degmada Jowhar gaar ahaan degmada Jowhar degmooyin kale oo kamidana way ka socdaan banaanbaxan ama taageerada lagu taageerayo inay heshay gobolka Banaadir xuquuqda ay lahayd muddo badan ay u taameysay inay helaan matalaadda aqalka sare marka waxaan leenahay aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay gaartay gobolka Banaadir xuquuqdii ama maartay matalaadda ay ku lahayd aqalka sare ee dawladda dhexe muddo badan ay maartay u qabtay ama u ciil qabtay ilaahay ayaa mahad iskale banaanbaxan ayaa waxa uu ahaa mid lagu taageerayay madaxweyne Farmaajo ka uu saxiixay 13 kursi gobolka Banaadir Yusni Maxamed Axmed Bulsha TV magaalada Jowhar